بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال كسو دوادا halkaad nagala socotaan waa Burgaata TV waxaan muddo ku kala maqlayn hawada maadaama ay tahay bil Ramadaan oo lagu mashquulsanaa waxaan maanta ku jirnaa maanta waa maalin farxadeed waxaan halkaan nala joogaa gudoomiyihii midnimada golaha Burgaate oo insha wali isbitaal ku jira laakiin xaaladiisu wanaagsan tahay maadaama aad nala wadaagteen waqtigii xanuunkiisa iyo dhibaatooyinkii uu soo maray oo muddada dheer oo bishii labaad hadda ku jira waxaan ku talagalnay in la wadaagno haddii ilaahay idin farxadeena iyo asagana caafimaadkiisa in idin la wadaagno waxa halkan nagula sugan suldaanka guud beelweynta Burgaate Hawiye suldaan Mubaarak Cali Xarki sidoo kale waxaan nala joogaa gudiyadii qadka telefoonka waxa ku jira عاقل علي حرسي مالي حر إلهي sidoo kale waxaan la joogaa halkaan la joogaa oo qadka uga jira isagoo weli isbitaal ku jira waxaan ku talagalnay maadaama mataqaan nagala qayb qaadateen muddo dheerna aad ka warqabteen sida uu xanuunkiisu u yahay inaad isagoo fadhiya nala wadaagtaan insha allahu tacaala farxadda iyo soo dhoweynta inaan halkan ugu ducayno inaan iraahdo soo dhowow madaxdeena joogta suldaankiioo jooga dalilaalihioo jooga afhayeenkiioo jooga iyo aniga u qaabilsan beesha Burgaate dhinaca warbaahinta inaad nala aragtaan gudoomiyaha caawa aad iyo aad u faraxsanahay dhammaantiin soo dhowaada waxaan abdi ilaahay idinku soo dhoweynayaa xogayaha afhayeenka golaha midnimada Burgaate Dr. Saciid oo live ah magaalada Muqdisho iyadoo waqtigan ay u tahay dhinaca Muqdisho aan filayo inay tahay 9kii iyo wax la jira dhinaca geeska Afrika soo dhawaaw Dr. Saciid waan dhawahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya waddiin ilaahay baa mahadda iska leh innaa fataxnaa laka fatxan mubiinan ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر إلهي باكو مادسن دمان فرحة يوتاي من نماذا غرغارتا هوية بلشوين تا غرغارتا بلشدة الصوماليين إنو ولالكين عبد القادر علي يرو أساسي أبيه غرغارتا إن عاوا سوى عفمات قبا وقد كان نقول جرو بلشدي من نماذا غرغارتا هوية وعاوا كلا حلا يوم تقانا لايف أنا فرحة بينوتاي guud ahaan dalka Soomaaliya gaar ahaan deegaanada aan ku sugannahayna farxad weyn iyo karaamo ay noo tahay ducadanada Ilaahay baa aqbalay caafimaad Ilaahay taama ayaan uga rajaynaynaa guud ahaan dal iyo dibadba waxaan soo dhaweynaynaa gudoomiyaha midnimada Burgaate Hawiye oo lafdhabar u ahaa oo hawshii aan soo qabanay tiir dhaxaad u ahaa aan la'aantiis wax badan aan noo qabsoomi lahayn ilaahay baa ku mahadsan inaan caawa live ku jiro oo nala hadlayo kana badbaadiyay uu ka badbaadiyay cudurkii COVID-19 alxamdulilah intaas ayaa farxad guud noo ah guud ahaan Burgaate wuu ku hambalyeynaya ilaahay bay ku baryeen ducadiina ilaahay wuu ka ajiibay marka gudoomiye soo dhawow dhammaan farxad bay dadka Soomaaliyeed u tahay qaasatan Burgaate farxad ayay u tahay waan soo dhaweynayaa gudoomiyaha waayahay adiga hadda raba inaan daawadayaasha la soo toddobiyo match inay ahayd waqtiga uu galay gudoomiyuhu mataqaanaa uu gala koomada waqtiga isbitaalka la dhigay muddo ka badan sana uu koomadaas ku jiray ilaahay ka soo badbaadiyay weli maanta waxaan ku jirtaa May waa bishii 5aad wuxuu galay bishii 3aad welina wuxuu ku sugan yahay isbitaal laakiin waxa ilaahay mahadiisa inuu asagoo fadhiya oo mataqaanaa la hadlaya caawin oo halkaan nala joogo waxa marka qadka ku jira xeer ilaaliyaha guud oo Sacuudi Arabiya qadka telefoonka uga jira Cali Xarsin Alleeya soo dhow Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaam ya dhamaantiin walaalaha qadka ku jira ugu horeeyo walaalkii Mujaahid Axmed Cali Hoodey oo ah gudoomiyaha TV Burgaate aad baan kugu mahadcelinayaa waxay noo tahay dhammaanteen haddana bulshooyinka Burgaate Hawiye inaan caawiyo dadweynaha qadka gudoomiyaha Cabdulqaadir Cali Yarow caafimaad Allah siiye oo mudan maqnaa oga ilaahay ka baryay caafimaad hadda wayo oo haysto
ilaahay inuu laba jibaaro xanuunkana ka qaado bulshooyinka gorgaartana waxaan ugu hambalyeynaa gudoomiyihii oo caafimaad qabo isla goorlu inshaalla maqli doontaan bulshooyinka nala degan saudi arabiya dhammaan way ku farxeen way u soo duceeyeen waxayna ugu soo duceeyeen xarunka gudoomiyaha hayay dhakhtarka uu la tahay ilaahay uu caafimaad taama siiyo waana soo dhoweynaynaa gudoomiyahayaga meel kasta joogtaan gorgaarta waxaan leenahay guriga gobonimo ana loo soo duceeyo gudoomiyaha aad iyo aad baan u soo dhoweynaynaa asalaamu calaykum waraxmatulla aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane xeer ilaaliye aad iyo aad baad u mahadsan tahay runtii anigu halkan kuma hayo laakiin waxaa jirta maalin intii gudoomiyuhu xanuunsanaa maalin baa waxaan u diraa la yidhaahdo hees aan tiriyo la yidhaahdo shimbir marka erayadeedii hadda kor kama wada xasu waxay laakiin ahayd shimbir yahu qalaade buuraha qotoma iyo qaranqaartu celinow kaala hawsha ii qabo qarintaana iga qab markaad qabato norway qolka lagu dabiiba ha qalqalini ugu gey qadartay aqbalayaande quraankay akhrinayaande qaadig bay baryahayaande macnaha waxay ahayd shimbirkaas wuxuu u gudbinayay fariin waxa aan qabno oo dhan runtii maalinkaas isla maalinkaas gudoomiyaha waxa uu tegay isbitaalka caruurtiisa waxaana u geeyeen marka biyo samsam oo meesha lagu cabsiyey marka shimbirihii waxay noqdeen caruurtiisa inay isla maalinkii booqdaan marka waxa weeye wixii ku jiray ayaa ilaahay aqbalay ilaahay baa mahadsan inuu caawa nala joogo ilaahay baa mahadsan in uu hadlayo isagii ilaahay baa mahadsan inuu ku jiro mataqaanaa qaabkii noloshiisa oo dib u hanan lahaa awooddiisu ay dib ugu soo noqon lahayd oo socod baradkii uu ku jiraa maadaama muddo dheera uu ku jiray kooma laakiin xanuunku waa ka ladan yahay waxaan rabaa intaa inaan ku daro ay ogaadaan bahweynta gorgaate ee shanta qaaradood oo adduunka kala joogta in hawlaha yagii shaqooyinka loo gudoomiyuhu oo madaxda noogu ahaa inaanan marna joogin shaqooyinkanagu ay socdaan inayna socon doonaan wax dib u dhaca iyo wax ay soo gaaraya haba yaraateene inaanay jirin waxaan rabnaa inaan mataqaanaa halkan ku iclaamino inaan hawshan 2 3 4 waa ku faraxsanahay gudoomiye in la joogo laakiin inaanay hawshan istaagi doonin hawshanina meesheedii gaari doonto insha allahu tacaala intaasna waxaan ugu bishaaraynaynaa dad daawadayaasheenna iyo taageerayaasheenna iyo walaalaheenna shanta qaaradood ee adduunka naga daawanaya maalin ramadaan 10kii dambe lagu jiro 23kii insha allahu tacaala waxaana la jooga suldaankii guud oo isagana u gudbin doona insha allahu tacaala sidoo ereyadiisa soo dhaweynta iyo marxabinta gudoomiyaha uu uga yiraahdo uguna soo dhaweeyo gudoomiyaha mikrofoonka si uu ula hadlo taageerayaashiisa inta qaaradooda adduunka ka daawanaya una faraxsan muuqaalkiisa soo dhawaad sultan بسم الله الحمد لله رب العالمين إله بقى محض له maanta aaladan aynu ku wada hadlayno oo qaaradaha adduunka inagoo kala joogno aynu life u wada joogno allahaasa mahadoo dhan u sugnaatay waxaynu halkaan isugu nimid maanta walaalkeen gudoomiye cabdilqaadir cali yarow soo dhaweyntiisa oo dhammaanteen aan ku faraxsanahay dhammaan reer gurgaate iyo soomaali intii taqaanay oo dhan ay runtii aad ugu faraxsan yihiin waxaan arkay anigu dad badan oo cabdilqaadir ay si gaara isu yaqaanaan oo aan la ahayb ahayn oo runtii aad uga murugoonayay yani aqoonta ay u lahaayeen iyo jacaylka ay u qabeen iyo sida markaa uu xanuunsaday ee cabdilqaadir ay uga damqadeen dhammaan waynu is ogeyn sidii looga damqaday aynu maqrib iyo maqshirba aynu ugu ducaynayna walaalkeen gabayga hadda aad tirinaysay axmedo walaalo gabay wuxuu ahaa aad maalintaa ilmaa indhahay kusoo istaagtay aad baan u qiirooday gabay aad u qiimo badanna wuu ahaa ilmaha oo ku sii socda ayaan jidka aan ka wacay maalintii ka horreysay oo wiilka weyne uu tegay oo runtii hadalkiisa biyo ayuu ka gartay astakfirla waa ka yimid
markuu ii sheegay aabba inuu hadlay farxad baan ooyey farxad biniaadanka mararka qaarkood farxadda way farxad ooyaan wallahi waan ooyey farxad baan la ooyey alxamdulilaahi rabbilcaalamiin walaalkay hadalka u badin mayno guddoomiye cabdilqaadir dadkaagu aad bay kuu jecel yihiin wanaagga iyo sharafta iyo karaamada ayay kugu jecel yihiin dadku iyagoon isaqoon shaqo iyo walaaltinimo malay maqlaa cabaas baa soo galay teleefonkay soo galay marka insha allah biidni illaahi kariim guddoomiye soo dhowo walaalo inta dhimanna ilahay waxaan kaaga rajeynaynaa inuu ilaahay caafimaadka kuu siyaadiyo oo maanta adigaas waad fadhidaa waad hadlaysaa wakti muddaan hadda wada hadlaynay oo lifekan ka horeeyey alxamdulilahi rabbilcaalamiin inta dhimanna alla waxaan ka rajeynaynaa inuu alla uu caafimaad sareecana taama ku siiyo dhammaanteenba soona dhowo guddoomiye asalaamu calaykum alxamdulilahi rabbilcaalamiin waad mahadsantihiin walaalayaal sida sharafta leh oo maxay walaaltinimada aad iyo ay ka muuqato oo aad ii marxabaysiiseen jasaakumullah khayr ilaahay ha idinka abaal mariyo aad iyo aad ayaad maxay haday ii soo dhoweyseen aniguna nin maaragtay abaal dhaca ilaahay igama dhigo alxamdulilah rabbilcaalamiin waad arkaysaan caafimaadkaygu hadda boqolkiiba 95 waa joogaa wax yar oo maaragtay systemka sambabada ku takhasusay oo neefsiga markaan neefsanayo ayaa maxay haday dhiman intaas darteedaan dhakhtarka ugu jiraa intii kale oo dhani waxa weeyaan hadda waxa weeyaan socodkayga dhaqdhaqaaqayga kale waa fiicanahay waxoogaa tabardarro iska jirtaayo ugu yaraan dee 40 cisho qof hal dhinac u jiifay oo dhabarka u jiifay oo aan isgedinayn oo dhinacna u dhacayn oo hal meel jooga jiifa xubnihii u isdaayeen waa la daalay daal baa aan dareemayaa aad u fara badan laakiin waan wanaagsanahay hadda caqligayga iyo maskaxdayda waxba ma gaarin sababtoo ah nambaradii iyo telefoonka iyo maxay haday koodharkii dhan oo bangiga iyo telefoonka iyo wax walba sidii ay ahaayeen aan u xasuustaa wax iga lumay ama aan ilaaway ma jiraan haba yaraatee maskaxda marka waxa weeyaan boqolkiiba boqol iyadu way caafimaad qabtaa xubnaha intooda kalena way caafimaad qabaan meel walba waa layga baaray miisaana lay saaray yacni meel yaroo dhuuban oo labada dhinacba godka ah lay marsiiyey iyadoo maaragtay korna layga hayo oo la qiyaasayo inaanan dhicin si aan balansigayga loo qiyaaso waa maray meeshii waa ku guulaystay waxaa la ii keenay warqado badan oo nambaro iyo wax walba ay ku qoran yihiin si maskaxda loo ogaado inaan maaragtay alfabetiga a iyo 1 inaan isku xiriiriyo markaan a ka tagana inaan 2 tago 2 markaan ka tagana c aan tago yacni markaa 23 xaraf ama 24 xaraf oo alfabetiga ahay oo mid walba number ku lamaansan yahay ayaa qalin la ii dhiibo la yiri mid walba midka ku xiga iyo numberka is leeyihiin isku xiriiri marka programyo waxay leeyihiin aad u wanaagsan oo ay ku qiyaasaan qofka xanuunka inuu ka bogsaday iyo inuu weli maaragtay ama ay maskaxdiisa wax gaareen ama maaragtay xubnihiisa kale irbado yaryar ay soo qaadanayaan farihii bay maaragtay meel mugdiya intay kugu geliyaan ayay midba mar irbad ku taabanayaan markaasay leeyihin farta aan kaa taabtay magaceeda sheeg marka system macnaha ay ku qiyaasayaan in aniga curuuqdaydii iyo xididadaydii iyo maxay haday maskaxdaydii iyo jirkayga ay wada shaqaynayaan marka meel walba si fiican ay baareen waana ku guulaystay alxamdulilah rabbilcaalamiin marka waxaan marka aad iyo aad ugu hambalyaynayaa midnimada Gorgaate iyo shacabka reer Gorgaate dhammaan dadka oo dhan salaan qiimo leh iyo maxay haday mahadcelin ducadoodii iyo baryihii ilaahay ay baryeen ayaan u soo dirayaa aad iyo aad gabdhihii iyo raggii iyo dadkii maxay haday ilmo Gorgaate maxamed iyo maxamuudba iyo silcisba iyo maxay haday wadalaan kulligood aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin
وإيسو دعيسين دعادي إننا إلهي وهي أقبلي الحمد لله رب العالمين وحن إلهي إذن كجبر يا إن أمارتي إذن كأبال مريو سيدا آد مارتي يقرب استاكتين سيدا آد مارتي تين إن آد أنا محي هذي igu kalsoonaataan sidaas marka ayaan maxay helay aad iyo aad idinkugu mahad celinayaa waxaan ogahay oo soo wacay dad badan oo aad u badan ay soo wacay waxaan ogahay dad markii ay soo waceen hadliba waayey oo yiri ma ninkii kooma ku jiray in ka badan 35 maalmood oo yani aan waxba kala ogeyn oo xataa dhaqaatiirtu ay ka dayriyeen ayaaba maanta ila hadlaya dad aan weligoodii arag oon aniga ay arag oo haddana maxay haday aad iyo aad hadli waayey oo in darteed marka aad iyo aad yani waxaan maanta xasuusan aan macnaha aan dareemayaa markii hore aan caadiga ahay intaanan xanuunsan walaaltinimadii iyo jacaylkii aan dadka u hayay mid aad iyo aad uga badanaan maanta dareemaya xaqiiqatan xilmigaygiina wuxuu ku kooban yahay in ay hirgasho midnimada Gorgaate ilaahay idankiis inta ay naftu ugu jirtana kama tanaasulayo باذن الله الكريم marka walaalayaal waa mahadsantihiin intiinan hadda ila joogta oo live ka ah afar qaaradood aan kala joognaa mase saddex aan kala joognaa wallahi afar aan kala joognaa sababtoo cali xirsi wuxuu joogaa waa Aasiya Saciid Macallin wuxuu joogaa waxa weeyaan waa Afrika suldaanka guud wuxuu joogaa waa America waa saddex qaaradood oo kala duwan aniga iyo Axmed Cali Huday inkastoo aan isku qaarad joogno laakiin aan aad u kala fognahay oo asaguna uu joogo Leicester aniguna aan joogo maxay ahayd magaalada la yiraahdo Tromso oo aad iyo aad uga fog waliba 4 saacadood ayaa u dhaxaysa London iyo oo diyaarada ayaa u dhaxaysa London iyo meesha anigu aan joogo laakiin markay transit tahay maalin dhan ayaad soconaysaa sababtoo ah 2 saacadood weeyaan Oslo iyo u dhaxaysa London Heathrow Airport anaa soo maray markaan Heathrow ka soo tagay oo aan imid Oslo laakiin 4 saacadood aan sugayay diyaaradii kale ee ii soo qaadaysay Tromso marka halkaas ayaan kala joognaa ilaahay subxaanahu wa tacaala noo sahlay aaladaha noocaana oo aan annagiyo intaasoo meelood kala joogno saa u kala fog aan ku sheekaysanayno isku arkayno WhatsApp-ka aad arkaysaan oo maaragtay dadkayagii oo dhan aan ku xiriirayno oo aan maxay ahayd ku gurmanayno oo dadkii ugu gurmanayno oo annaguna maxay ahayd aan isku caawinayno isku saacidayno iskugu soo ducaynayno ilaahay subxaanahu wa tacaala ma haddaas iskale alxamdulillah rabbil caalamiin annaguna waxaan la ka rabaa in aan qaybteeda ka qaadano adduunyadan casriga ah ee sidaan oo dhan u wanaagsanaatay oo aan maxay ahayd iska fogeyno cunfiga iyo maxay ahayd qaab darrada iyo nacaybka iyo qabyaaladda iyo waxyaalaha qaladka oo dhan inaan ka fogaano oo isu soo dhawaano oo walaaltinimadeeda muujino oo Soomaali weyn u muujino ilmo Gorgaate mid ah oo saa isu garbaha isu haysta oo maxay ahayd isku kalsoon oo isjecel oo aad iyo aad isu rabo marxabaysiinaya inay Soomaali weyn aragto mar uun waa xilmigayga yani waa aniga fakarkayga iyo maxay ahayd ujeedada dhan oo maxay ahayd hadda aniga shaqo kama fakiro inaan lacag aruursado kama fakiro inaan maaragtay barnaamijyo kale oo maaragtay noloshayda ku saabsan wallahi kama fakiro waxaan kaliya ka fakiraa in ay hirgasho midnimada Gorgaate insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala waa ogyahay qalbigayga inaan been sheegayn subxaanahu wa ta'ala asaa marqaati ka marka taas aan ku dadaalno oo walaalayaal aan maxay ahayd isku soo noqono oo qofkii xoga caajisay markii hore intii ana waxaan xanuunsanayay ama intiiba aan joogay qofkii xanaaqay hal is saamaxo oo dadka oo dhan al-musaamax kariim hal yiraahdo oo qof kasta oo maxay ahayd qof kale wax ka tirsanayay bifadli Ramadaan 10kii dambe aan ku jirnaa dadka oo dhan aan sheegay in aan maaragtay aan is saamaxno oo isu soo dhawaano oo walaaltinimadeeda iyo midnimadeeda xoojino oo wixii hore waaba dhacay wax kasto dhacay in aan ka tanaasulno laakiin hadda iyo nolol cusub inaan bilaawno oo aan bab cusub furno oo aan maxay ahayd Gorgaate midayno taas aan ku dadaalno intaas ayaan ka codsanayaa dadweynaha oo dhan maanta live weeyaan waxaan ku jira oo maaragtay laga dhageysanaya waxaan rabaa in aan maaragtay arrintaas iyada ku booriyo rag iyo dumar caruur iyo waayeel kulligiin garbaha isqabsada walaaltinimadiina muujiya oo adduunka oo dhan ku faafiya
maaragtay aan is saacidno oo aan isu soo dhowaano oo yaynaan kala tegin oo isnicin oo isnacbaanin ee aan isjeclaano sidaasaan idinku dardaarmaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gudoomiye aad iyo aad umahadsan tahay waxaa dadka horta telefoonka ku jira caray oo isaguna mataqaanaa xogayihii ayaa qadka ku jira telefoonka oo hadda intii aad qudbeynaysa soo galay mideeda kale waxaana daawanaya insha allahu tacaala isaguna afhayeenka guddiga gurgaate ee australia oo ayaguna mataqaana nala soo xiriiray ayaguna shaqadii halkaa ka qaban doona ayaa isaguna xasan fare ayaa kamid a dadkana daawanaya waan salaamaynaa waanan u mahad celinaynaa siday noo soo raadiyeen siday howlahooda u wataan ayaguna iyagoo samayn doona xafladihii iyagoona samayn doona bacda ramadaan haddii ilaahay coronavirusku markii uu dhammaado iyagoo wax walba gacan hiyahooda diyaar noola ah iyaguna soo raadiyey nala soo xiriiray aad iyo aadaan uga mahad celinaya xasan fare iyo gruubkiisa iyaguna australia haddii ilaahay nagala soo xiriiray waa mahadsantihiin marka haddana waxaan kusoo dhaweynayaa xogayaha guud guddiga midnimada soo dhawow waan dhawahay walaalkii maanta waxaan salaamayaa walaalaha jaariyadaha reerka tagal waa joogta ugu horeeyo caawana waa habeen ka qayb qaad doona gudoomiyahayna sharafta cabdiqaadir cali oo nagala soo qayb galay ilaahay caafimaadka u siyaadiyo adigana waa kaaga mahadcelinayaa dhammaan barnaamijkaas qayb qaadanayso oo walaalkiin cabaas araacay walaalahayga waa mahadsantihiin kolley waxaa kasoo sheekeeyey barnaamijka quruxda badnaa gudoomiyahayna iyo walaalaha waxaa nala jooga doctor saciid iyo suldaanku waa nala joogaan suldaan mubaarak iyo doctor saciidna waa nala jooga maasha allah dhammaan waxaan salaamaa afhayeenka doctor saciid mubaarak ya dhammaan reerka dalbaa joogta iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed oo walaalkiin cabaas habiib guddiga waa alxamdulilah waa caawa habeenka ka baxan maasha allah waxaan rabaa inaan ogaadiyo dhammaan reer gurgaade waa sideedii iyo insha allahu caawa mataqaanaa dadkii hogaanaya midnimada hadday tahay muqaashi hadday tahay dadkii guddiga marka waa walaalahay walaalkiin insha allah waxaan rajeynaynaa inay gaarto meesha mataqaanaa ugu fiican sida guddoomiye uu yiri annaguna kale waqti aan gelinay mataqaanaa 28 September ilaa hadda qabsoomay ilaahay yahay waxaana dhammaan dadka walaalaha ah madaadka ah ee wanaagga ah ee wax laga shaqeeya adduunka wax ugu fiican markii laga shaqeeyo waa oo dad walaala oo ehela walaalaha oo mar la waxaan malmaynaa in adduunya aakhirna ugu fiicanta ilaahayna mataqaana af walba ka shaqeeyey ha ka sii ajri xasanaad khaasatan walaalaha meesha ku dhancaaw oo aanan soo koobi karin sida mataqaana isku hore marka axmed waa mahadsan tahay kolley anugu dadkaasaan qayb ka ahaa waana habeenkiiga farxad badan habeenadii oo caawana insha allahu gudoomiye oo hadar oo noo yahay ducadii iyo sadaqadii reer gurgaarta ay mataqaana u bixiyeen ilaahay noo aqbala caawana insha allahu soo dhawaada aan leeyahay dhammaantiin aad iyo aad u mahadsan tahay cabaas gudoomiye markuu ka hadlayay wixii hore aan iska ilowday waxa uu ka wada waxa weeye xanuunkiina soo maray iyo xanuunkiisii iyo maqnaashihiisii iyo jirooyinkiisii weeye laakiin ma jiran haba yaraatee wax guddiga gorgaate iyo howlihii gorgaate iyo haba socodkii gorgaate midnaba soo galay ama soo kala dhex galay haba yaraatee iyo wax joogsan hakaday ama hakad ku yimid ama khilaaf oo yimid haba yaraatee ma jirto laakiin wuxuu ka hadlaya waxa weeye intii uu maqnaa xoogaa kala qaadashadii dhacday ayuu ka hadlayaa marka sidaas darteed barnaamijka meel gabagaba ayuu noo marayaa intaas waxaan rabay inaan hadalkii guddoomiyaha dadku na daawanaya siday u fahmaan inay tahay intuu xanuunsanaa kala maqnaashii iyo xoogaa kala daadashadii dhacday inaan mataqaanaa dib loogu noqonin oo hadda niyad cusub lala yimaado oo xanuunkiisii mataqaanaa asna uu kasoo kabsaday ayee xogaya waxaan isleeyahay waxbaad rabtaa inaad tiraado soo dhow waa sidaas wax kala daatay wax kala ma jiraan keliya adduunkina gaaba wada galay oo cudurradana adduunka saameeyey hadday tahay hadday dad isku dhignaa midaa faransadii hadday tahay qofku reer gurgaata oo barnaamijka ku qabana laakiin sidii reer gurgaata guddigoodii iyo walaalnimadii bedela haba yaraateen xataa jiraan marka wax aad loogu farxo insha allahu waxay gaari doontaa insha allah meeshii aan ugu talagalnay axmedow waana mahadsan tahay doonaa insha allah
ما شاء الله وانا بوغادينا ادكس وغيرها يا دمان قراياش oo بوغادينا waan u mahadcelinaynaa iyo dhamaan guddiga insha Allah anagoo isku macallinahay ay mataqaanay aad iyo aad inta aan barnaamijka gabagabayn aniga horta waxaa markii guddigan ila soo xiriireen Australia oo arrimaha guddigan Gorgate waxa ay weydiiyeen inaan fasax u siino shaqooyinkeeda inay qabsadaan oo waxaan u sheegnay inay shaqooyinkan cid kala hayn fasaxan yihiin maadaama ay joogaan hadda suldaankii iyo guddoomiyihii iyaguna inay si toos ah ula hadlaan dadka reer Australia iyo guddiga reer Australia oo afyoonkooda daawanaya ka mid yahay inay ayagu si toos ah ula hadlaan ayaan maaragtay ayaan ku talin lahaa waxaana rabaa xasan faray afayeenka u ah guddiga Australia daawanaya maadaama anigu markii hore aan ku ahayd si guddoomiyaha suldaanka ay isla joogeen in shaqooyinkeeda qabsadaan hawshaan aan cid kala hayn hadda inay afkooda kula hadlaan reer Australia suldaanka iyo guddoomiyaha waxaan rabaa marka koowaad inaan sii guddoomiyaha loogu dhansado السلام عليكم ومهدسن يهين رئيس أستراليا إن أي نلسو حريرين أو أي مارتي هودا كأركان نشاطك إيو دقدقاغا مدنمد قرقاتي أين مارتي الدنيين إن أي أرنتاس قيبتو ذا كقاتان آدي آدان وفرح سانهاي وانا كوبو قادينيا وحنان آمن سنهاي قف كستا oo u dhashay beelweynta Gorgate meel kasta uu joogo ayuu wakiil nooga noqonayaa nooguna yahay waana u fasaxayn shaqadooda inay hawsha qabtaan oo ay maxay helayaan shirar iyo maartay iclaanin iyo xamaasad wanaagsan dadkii ay maartay gaarsiiyaan oo shacabka ay gaarsiiyaan sidaasaan ka codsanayaa aad iyo aad aan anigu u jecelahay in qofku يعني أولي مادو ديرنان iyo maxay haday raganimo ama dadnimo qofnimo wanaagsan oo la yimaado oo program oo asaga naftirkiisu jecelaystay uu horumariyo dadkii marka waxa loo baahan yahay in aan iska warqabno oo aan is ogaano oo mabaadi'da aan ku socono ay mid ahaato waxa kaliya aan rabnaa annagu waxaan nahay guddigii midnimada Gorgate ama golaha midnimada Gorgate hawiye ujeedadeennu waxay tahay in la xaal mariyo walaalaheen Maxamed Gorgate intaas kaliya inay ku ekaato barnaamijka ama ajandaha qofka uu ka hadlayo marka uu hadlayo iyo marka uu khudbaynayo iyo marka uu dadka wax fahamsiinayo inuu ajandahaas isaga ah ku jiro magaceena waxa la yiraahdaa golaha midnimada Gorgate hawiye ajandaheena amaba maxay ahayd shaqadeennuna waxay tahay gaaridda midnimada ama midaynta walaalaha Gorgate oo ah gogosha ugu dambaysa ugu weyn oo ah xaalmarinta walaalaha Maxamed Gorgate oo loo yaqaan Madhibaan intaas marka aan isla fahamno aadan uga shaqeyn karnaa waana doonaynaa meel walba inaan ku yeelano farac iyo maxay ahayd dad oo representative amaba naga wakiila inaan meel walba ku yeelano oon xamar ku yeelano xamar waaba ku leenahay inaan ku yeelano matalan magaalooyinkan oo wadamada noo dhiman oo kale matalan hadda maba garanayaan wadan noo dhiman South Africa ayaan u malaynayaa inaan ka hayn laakiin day matalan Malaysia oo kale dad noo jooga Maraykan waa ka soo Suudaanka iyo adduunka oo dhan jooga Ingiriiska ayaa jooga Soomaaliya waa ka Saciida noo jooga Turkiga Abbas noo jooga dadkii oo dhan qof walba meel uu jooga meelaha dhiman marka waxa ka mid ah malaynayaa Kenya iyo South Africa meelaha Soomaalidu ugu badan tahay waxna meel aan Soomaali joogin dawlan qofna iskugu imaanay laakiin wadanka Kenya Ethiopia waa la joogaa oo waatii ay Xamdi Kalgacal ka soo duubtay codadka ka soo duubtay ugaasyo badan iyo rag badan oo maartay meesha jooga Djibouti waa la joogaa dadkii marka waa meel walba waa la joogaa alxamdulillah rabbil caalamiin marka Australia in maanta ay nooga soo biireen Canada waa arkaysaan oo shiraabo la qaban qaabinay laakiin waxa dhacay cudurkan iyo jirada iyo waxyaalahan dhacay marka alxamdulillah rabbil caalamiin yani maanta waxaan ku faani karnaa in aan maartay meel walba adduunka kamid ah aan joogno suldaankana waa badaalinay sidaan hadda asagoo kulliba shaqana ka yimid anigu nin meel dhakhtar ku jiro waxaan baa iska fadhiye
laakiin hadalkuna waa sii dheeraaday marka balmaalina ahaada alxamdulilah marka nimanka australia ragga naga soo wacay aad iyo aad ay u mahadsan yihiin anigu waan ku waafaqsanahay suldaankuna codkiisa ha ka dhigto waayo suldaan soo dhawow madaxa meel ka korayso la saaxa lama arko waa ku daawanayaan macnaha shacabkaaga australia way ku daawanayaan kelmadaaday sugayaan kusoo dhowow bismillah horta hadalku waa hadal guddoomiyaha dhameeyey waxba kama tegin wax walba siday ahaayeen isagaa sheegay nin kasta oo gurgaata ama gabar kasta oo gurgaataana lagu soo dhoweyn maayo waa waajibaad uu leeyahay oo waxaan inuu qaybtiisa ka qaato oo wax ka qabto walaalkay xasan faray aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya isaga iyo guddida afhayeenka u dooratay dadaalka uu wado waan la socdaa guddoomiye axmed baan ka wada hadalnay guddoomiyaha media oo ila socodsiiyey maalmihii uu la soo hadlay iyo dadaalka iyo firfircoonida uu wado garabkaagaanu taagannahay adig iyo dhammaan reer australia meel kasta oo ay joogaan reer gurgaatana waa looga baahan yahay in ay u kacaan qadiyadan cidna kama dhaca waa un in la wada xiriiro la wada hadlo sida loo wada shaqaynayo maaragtay layswargeliyo oo laysugu sheego qaabkaasaa shaqadu u soconaysaa qaabkaas wax u qabta qaabkaa wax u sameeya waa intaas waxa laysaga baahaya in laysu sheego waa waajibaad nin walba saaran oo reer gurgaata ama gabar walba oo reer gurgaata waajib saaran weeye waana ilaahay mahadii soo dhawaadaan leenahay reer australia gobollada kale naga maqalna insha allah waa imaan doonaan biidnillaahi kariim sidaasaan aan kusoo dhamaystiraya hadalkayga aad iyo aad u mahadsan tahay suldaan waxaan rabaa marka daawadayaasha inaan arrin yar aan la socodsiiyo sida aad socotaan waxaa jira covid-19 waxaa jira safaradii inay xiran yihiin waxaadna ogtihiin shirkii koowaad in loogu talagalay inuu dhaco bisha July arrintaas wixii iska bedela dibaa laydinkala soo socodsiin doonaa maadaama safaradii iyo diyaaradii iyo wax walba adag yihiin cudurro ay jiraan oo aan la shiri karin oo cudurradaas in la faafo la diidayo ayna tahay inaan raacno fariimaha dadka professionalista ay noo soo jeedinayaan waxaana naftanada iyo nafta ummad dadka taageerayaashayada iyo shacabka iyagaba aanan tahluuko u soo jeedin waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan arrintaas wixii iska bedela dib idinkala soo socodsiino markii aan go'aan ka gaarna haddii ilaahay mar dhow inkastoo anaga barnaamijka soo gabagabayn doona hadda guddoomiyaha erey oran doona cid kastoo rabta inay ereya soo gabagabaa tirahdana waan sii doonaa haddii ilaahay haddana waxaan siinaya guddoomiyaha cabdulqaadir soo dhow bismillah waxaan rabaa in aan maaragtay ummadda reer gurgaata u waadaxiyo aniga xanuunka igu dhacay waxaan qiyaasayaa 90% in uu iga soo raacay shir weyne lagu qabtay magaalada Stockholm ee dalka Sweden oo aan anigu uga qayb galay anigoo ku safray magaca gurgaate laakiin shirkaas uu ahaa shir qaas u ah beelweynta habargidir ayagoo maaragtay danahooda khaaska ah ka shirayay marka waxaan hadda macnaha reason ahaan shirka iyagu inuu dib u dhaco waxaa u sabab noqonaysa in uu jiro cudurkaasi dadkuna markay badan yihiin qofka cudurka qaba qof oo cudurka qaba 460 qof ayaa meeshaas iskugu timid 460kii 9 qof oo ka mid ah magaalada Stockholm ay ku dhinteen anigu halkaan ku xanuunsaday markii aan imid kadib marka alwiqaayatu ghayr min alcilaaj ayaa maxay ahayd ay tahay maama carbeed oo aad u wanaagsan wiqaaya yani iska ilaalinta ama taxadarida marka hore ayaa ka wanaagsan inaad dib iska daweysid weeyaan macnaha marka alwiqaaya khayra min alcilaaj marka sidaas darteed waa wiqaaya yani inaanan inta uu jiro covid-19ka ama covid-19ka inta uu jiro in aan maxay shirar badan la samayn oo aan dadkii isku dhex qasmin sababtoo ah qofka cudurka siday looma jeedo oo dadka lagama yaqaano marka wiqaaya khayra min alcilaaj sidaas aan isticmaalno aan dib u dhigano shirka taladaas waxa weeyaan kulligeen waa isla afgaranay hadda intaanaan live-ka soo gelin aan ka wada munaaqashnay waanan maxay ahayd isku afgaranay arrintaas ayadaana
waa muhiim marka inay dadku ku kalsoonaadaan oo shirka dib u dhiciisa waxa sababay ma ahan aniga ma ahan suldaanka ma aha Axmed Cali Huday mana aha Dr. Saciid laakiin waxa weeyaan waa duruufta nagu xeeran hadda iyo dhibaatooyinka hadda jira iyo diyaarada la'aanta iyo cudurkii oo laga baqayo in la isqaadsiiyo waxaasaa sabab u ah marka ilaahay idinkiis ha lagu qanacsanaado hana la iswaafaqo insha Allah mar kalaan aan ku ducaynayaa ilaahayow naga dhig diirankii isu soo fooriya sidaasaan ku ducaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waayaha aad iyo aad u mahadsantahay gudoomiye hadda waxaan xabaas iyo doctorka iyo suldaanku wayna maqlayaan marka waxaan filayaa doctorka inuu rabo kelmad inuu yiraahdo gabagabaan ku jirnaa soo dhow bismillahi raxmaani raxiim dhammaan halkan waxaan ka salaamaynaa bahweynta gorgaarta hawiye iyo bahweynta soomaaliyeed ee na daawanaysa midnimada gorgaartee waxaan leenahay hawaarto waqtigii iyo dadaaladii iyo shaqadii la geliyana waxa weeye ajri xasanaad dadkii ka shaqeeya allaha ka siiyo shaqadu si caadi ayay u socotaa hawlihii midnimada gorgaartana gudaha way ka socdeen gurubadii iyo qaybihii laga wada tashan jirana hawshu si caadi ayay habsami leh uga socotay bisha Ramadaan iyo COVID-19 iyo hawlaha iska yimid oo lockdownka adduunyada ka dhacay inba wax isbedeleen insha Allah taala hawshii aan wadnaaydo ka qurux badan sida gudoomiyuhu sheegana way dhici doontaa dhammaan waan salaamaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan leeyahay Axmed Cali Huday aad uad mahadsan tahay gudoomiyaha allaha inoo barakeeyo kulankan kulan khayr qaba oo abshira ayuu ahaa intaas ayaan kusoo gabagabaynaa dhammaanna waan salaamayaa bahweynta gorgaarta meel kasta ay joogaan haya cabaas aqad ma qaadanaysaa kalowsan haddii ilaahay cabaas kolley nama maqlaan filayaa marka sultan waxaan u malaynaha inaan naga soo gabagabeeyo barnaamijka marka intaana barnaamijka soo waxaan rabaa Soomaalidu waxay tiraan socodka foolka عباس السلام عليكم احمد هذا ما تنقهي برنامجك كل انا روح الله يا واسيدي برنامجك هو سعودي ان شاء الله وانا سيدي قدوميه يا سلطانكم يا فينكم يا ايو دغ تاس شقنتا ان شاء الله ولا لا دمان وهو بعد النهايه يضمن تسوق القادسي يضمن خير كتوله سلامه مدن هو مقدس ان شاء الله برنامجك سو مثلا نتابعه وقت اللي ان شاء الله ka tashan doona insha Allah aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan rabaa marka inaan ku soo gabagabeeyo socodka foosha xun magacyo badan oo loogu yeeraa jira waxa la yiraahdaa koogaar waxa la yiraahdaa sabiiq waxa la yiraahdaa bihir waxa la yiraahdaa hirib waxa magac nuucyo badan u leeyahay marka waxaan leeyahay qoliyaha raba arrimaha gudaha inay faragashadaan socodkaas oo kala waaya aragtidiinu marka insha Allah taala arrintan arinaad wax ka qaban kartaan ma arina aad joojin kartaan maane weerta iyo beerta iyo koogaarta iyo sabiiqda joojiya ama rab ama harabin waa la socodsiinaya marka dhammaantiina aad iyo aad u mahadsantihiin sultaan sidaad uga soo qayb gashay aad iyo aad ugu mahadsan tahay barnaamijkan waana wixii aad mataqaanaa sidaad shacabkaaga mar walba hoos ugu soo degto oo dhegaysato oo ula fariisato waa kaaga mahad celinayna gudoomiyaha adigoo xanuunsan oo isbitaal ku jira inaad barnaamijka nagala qayb qaadato oo aan energy haynin intaasoo bilad xanuunsana aad iyo aadan kaaga mahad celinayna cabaas oo turkiga uga jiray aad iyo aadan ugu mahad celinayna doctorka oo fadhiya muqdisho saacadan jooga oo bannaan taagan weliba anuu kaliyaas mali muqdisho waaba ka baqaay waa u mahad celinayna cali sacuudi arabiya nogala soo galay barnaamijka aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa guud ahaan daawadayaasheenna dhegaystayaasheenna taageerayaasheenna waxaan leenahay koogaare waxba nagama qaado aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu guul iyo gobonimo